sidoo kale Faarax Macalin waxa uu ka hadlay wax ku saabsan arrimaha dekada Berbera oo lagu wareejiyay qaliijka Carabta waxa uu sheegay in Carabtu ay doonayaan inay curyaamiyaan horumarka Soomaaliya isagoo xusin hadii ay u suura gasho inay dekada Berbera toos u la wareegaan ay taasi ka dhigan tahay inay hoos u dhigaan horumarka dalka wadamaha kale iyaga kula dagaalamay waxay wadamaha مثلا khaliijka oo laba shay ka cabsanayaan mid waxay ka cabsanayaan heebta bariga oo Soomaaliya in dekada laga hagaajiyo marka dib ay ku guday ma jirto wali faanti Soomaaliya free ports laga hagaajiyo ilaa Soomaaliya wadnaha adduunka ay ku taala hadii free port laga hagaajiyo raas xafuun oo kale oo Suezki waka Europe loo kacay South America wata North America wata Africa intiisa kale wata Asia iyo the major industrialized states nations oo sida China iyo Japan iyo India iyo Hong Kong iyo Singapore iyo Korea in xagee jiraan marka nin laab galayo ma jiro alaabtoodii ay u keenayaan suuqa maanta Kuwait مثلا Dubai oo kale waa suuq caalami marka ninka suuqa caalamiga muddo dheer ku galay inuu gaaro haduu ka heli karo meel nabad ah oo suuqiisa dal laga suuqi karo oo Soomaaliya xeebteeda dalka ma kacayo marka shidaal baadna Soomaaliya ku jira waxa ka dhaadhacsan hadii shidaalka Soomaaliya la soo saaro in maaragtay ay kan Sacuudiga uu adkaanaya si loogu baahdo si fudud oo kan Iran oo kan Imaaraadka iyo kan Kuwait ma garta halkay iyo maxay kuwaas oo dhanba cabsidaas ku jirta